كبروا كبروا كنا صو بولشة TV. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدوني يمكن ما تجاوب ربحيو هذا إلى حلقة ما أنت بتجينا صحافة وقصوا يلي أفعيك حسب الوطني حسب الوطني أفعيك يسوع لما بنبغى رنتي كهرلي لكن جوابتي وحيقوم تعرفت حياتي بسياسي وسارد المالية ده تاسو أهيد إن لما بقول أكون $1 خصنتك على بيد يصير على وسعري حسب الكلية الجامعية مسبيح عبدي أنتاسي فنتي وعارفين أنا وحبك تشرين مرة الرئيسة وأنا أعرف كعصب سياسة الصومال لان يوحيابها كنت الأسبوع هذا إن لي هذا كاستم أيها العقل قلبها waxaan maqli jiray in leeyahay dawladdu waxay ka saartay lacag inta leeg baanan bangiga dhexe iyo bangiyada dawladda laakiin waa wax nagu cusub in la custom ayaa lacag laga saaray arintaas runtii waa arrin waxba ka jirin waa arrin dawladnimadeena iyo sharciga asxaabta iyo ka aynu ku socono runtii ceeb ku ah oo aan runtii wanaagsaneyn waxaan marka hore idin sheegaynaa waxa weeyaan kastamada wixii ka soo xarooda kastamadu baanan maaha wixii ka soo xarooda maalintii walba waa la shubaa waxa lagu shubaa bangiyada dawladda waxaanay soo martaa system laakiin lacag lagu kaydiyo customiska runtii ma jirto waa waxaan waxba ka jirin waana waxaan dhicin maanta halkan aan ka hadlayo aniga ayaa haya xilkii wasiirka wasaaradda maaliyadda cid aan amray iyo cid aan ku 200,000 siiya xisbiga kulmiye iyo madaxdiisa runtii ma jirto waa waxaan waxba ka jirin xisbiga wadani wuxuu sheegay inuu cadeymayo laakiin cadeymaha marka la hayo miiska la soo dhigaa marka waxaan oranaynaa oo leenahay arintaas waa in xisbiga wadani ka tanaasulaa oo aan waxyaabaha caynkaas oo kala bulshada u sheegin qarannimadeena ceeb bay ku tahay asxaabta iyo sharcigooda iyo waxyaabaha la isku eedeeyo ceeb bay ku tahay madaxda wasaaradda maaliyadda iyo inta dawladda u shaqeynaysa dadka ceeb bay ku tahay marka waa in arrimaha caynkaas oo kale laga tanaasulaa oo xisbiga wadani uu eedaha u jeedinayo ee aan runtii salka iyo raadka toona lahayn uu ka tanaasulaa oo aanu markiiba waxyaabaha caynkaas oo kale soo celin intaa ayaan kula talinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaba uu yahay xildhibaan ka tirsan laftiisa golaha wakiilada oo mushaar ka qaata qaranka inuu soo hadlaa miyaanay ما runtii ceeb bay ku tahay waxaan filaynay in xisbiga wadani iyo madaxdiisu waliba xildhibaanku waa qoon u leeyahay systemka dawliga ah ee dhaqaalaha loo ururiyo iyo sida ay u soo xarooto laakiin waxaad moodaa wadanka ay rajada ka qabaan inay hogaamin doonaan aanay garanaynba oo ay meel ka dhaafsan yihiin runtii sida dee loo shaqeeyo nidaamka dawliga ah sidoo uu socdo waxaan idin sheegayaa wararka la sheegayo ee la leeyahay customka kala bay ayaa lacag lagala baxay in ay tahay waxaan waxba ka jirin customka kala bay maalin kasta lacagta cashuurta ee lagu qabto waxa lagu xareeyaa banka gebi waxa ka marxaatiya xisaabiyaha jooga waxa ka marxaatiya ciidamada cashuur ilaalin waxa ka marxaatiya kuwa cashuurta laga qaado cashuurta waxa ku godaa rasiid jawan ayaa la siyaa ninka soo ganacsa maaha kastan kuwa soo xareeyaa cid wax saarta ama cid lacag siin karta ma marka beenaha qaarkood waxa kulli ma istaahilaan in laga jawaabo tanise cid kasta way ogtahay waa arrin marxaati leh meel kasta kastamadiida ugu weyn haday tahay berbera sayla kalabay boorama airport Hargeysa daily wixii ka soo baxa waa la xareeyaa oo waxay soo marayaan xisaabiyaha guud wakiilkiisa u jooga meesha oo ka qabta banka lagu xareeyo taas waa wax cadeyn u leh beenaha qaarkood mid haddii cid ka soo been iska sheegto waxa weeye mushkilad waxa weeye tan oo kale waa dambi laga galay inay ka joogeen shaqaalaha noo jooga waxaan anagu wasiir codsanaynaa cid waxaa tidhi in la yiraahdo cadeeya oo sharciga la hor keeno wassalaamu calaykum